السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalkiina saaxiibkiin maxamed shaahid aad iyo aad baan salaamay khayrna wada rajeynay youtube channelka daawanaysan waa maxamed shaahid sidoo kale facebook page daawanaysan waa maxamed shaahid aad iyo aad baan salaamay aad iyo aad idinkuna sidoo maanta waxaan ku hadli doonaa mowduuc aad iyo aad muhiim ah mowduucaas oo ah smellinka ama urta hadii jeer waxa ugu badan ee ugu muhiimsan dareemayaashiina waxa weeye dareenka urta mar kasta oo urtaadu xumaato dhinac kastaba ha noqotay urtaadu ay xumaato dadka joogooga imayna dadka ag joogtaa dadka dhibaato ku noqonaysa marka maanta waxaan samayn doonaa videogan ayaan ku kala jabin doonaa qodobo ay tahay inaad raacdo nin ahaan si aad markasta smelling good u samayso oo urtaadu ay u fiicnaato marka videoga inoo bilaaba qodobka ugu horeeya ee koobaad waxa weeye inaad iska ilaaliso inuu afkaagu uro waa qodob aad iyo aad muhiim ah in badan YouTube channelkan waan ku sheegay in badan video badan waan ka hadlay dad badan way maqlaan anigoo leh in afkaaga aad ka ilaaliso inuu uraa waxa weeyaan qodobada ugu muhiimsan xitaa haddii aad nin maadaama tahay masaajid tagayso jimca kusoo tukanayso in afkaaga ura dhibaato ayuu keenaya iyo karaahiyu keenaya dad kale kuwa tukanaya cibaadadii baa macala laga dhigay oo xadiiska waa ka siwaaku madharatu lilfami mardatu lirabbi marka afkiinu nadiifinaya ilaahay inuu raali gelinaya marka maxaa muhiim ah inaad markaas afkaagu aanu urin aad markaas cadeeyo haddaad cunto kalluun iyo basal iyo cuntooyinka hadii jeer ura haddii afkaaga ku cunto inaad cadeeyo haddii sidoo kale waqti cadiga kugu damay sabab kale soo baxday hawl badaysay wad yar raagtay waxa u soo dhawaaday mid gelin dambe maanta kale waxaad cuntay inaad jeebada ku seeto xanjada cunto sababta xanjadu waxay keenaysaa inaan afkaaga isku dhegin oo aan xanjadii ina urtii ka baabisay keenaysaa afkaaga u shaqeeyo oo dhadhankeedii iyo urteedii marka afkii galan wuxuu keenayaa inaanu ur afkaaga keenin ba noqonaysa marka markaas inaad xanjada jeebada ku seeto ayaa muhiim ah sidoo kalena aad ku dadaasho cadayga flossinka sidoo kalena aad carabkana cadaydo taas markaas muhiim ah oo keenaysa inaanu afkaagu urin taas markaas keenaysa qodobka labaad waxa weeye maydho dad qaar baa oran doono war waxay mid waalto waxay maydhasho ka sheegaysaa waxa weeyaan maydho dad badan waxa jira maydhasho dhayalsada waxay ka oranayaan inay maanta mid maydhin ma ka oranaysaa ma insha Allah baan maydhay saaka mid maydhin shaqada markaad u baxayso ma shaqada tagso war shalay gelin dama yara maydho ama xalay baan maydho xawgeed xalay dhama ka dambeysay wad seexatay inaad markasta maydhata wad fresh jirkaagu ahaada waxa weeyaan shay aad iyo aad muhiim ah marka maydhashada markaas ugu dadaal markasta maydho asanin ahaan jirkeen uu adag yahay saliidaha iyo dhididku soo saaraya uu adag yahay marka maxaa muhiim ah inaan wixii kugu sameyn bil ab oo aan kugu dul dhismin sababta dhididkii waxa la yiraahdaa dhididku marka uu jirka soo baxayo ma uro laakiin dhididka waxa urta u sameeya bakteeriyada jirkeena ku nool taasina waxay imanaysaa markuu dhididkii jirkaaga ka soo baxo adoo waqti yar ka soo wareega marka maydhato jirkaaga neefta dhididka soo baxo laakiin adoo dhididka hore kugu yaalo markuu mid kale soo baxo waxa imanaya wax loo yaqaano banaf imanaya marka wax muhiim ah iska ilaali qodobka saddexaad waxa weeye deodorant isticmaal deodorant waxa weeyaan baasha kala isticmaal dad badan ma isticmaalaan baasha kaliya iska maydha iska baxa baashaas waxyaabo badan bay ilaalinaysaa waxay ka ilaalinaysaa in dhididkii kala inay urto ilaalinaysaa oo udgoon bay u samaynaysaa sidoo kale dharkaaga dhididkii uriyo oo protection oo kale u noqonaysaa laba nooc baa jira waxaa jira deodorant mid loo yaqaan iyo antiperspirant mid loo yaqaan deodorant waxa weeye ka marsanayso ka wadidaysa laakiin marsanaysa marka maxay man dhididkaaga ur baan u yeelanayn oo dharkii macala dharkaaga udgoon bay ahaanayaan dad urstama dharka iska saarto maalin kale soo wareegto ma yeelanayaan wax ura antiperspirant waxa weeye dhididka ayuu soo caliya oo dhididkii uu xidhaya marka wax fiican iska marka lama isticmaalo marna qaar baa la isticmaalaa xaaladaha qaar gooniya marka doonaysa wax dhididka soo bixin ay la isticmaalaa qaar badan oo cheapes ka jiro aan shaqayn laakiin antiperspirant iyo deodorant difference ka soo dhaxeeya marka diibsanayso waxa ku qoran dusha kaga qorantay antiperspirant iyo sidoo kale deodorant dadka waxay yiraahdaan waa kii kale kala 24 saacadood waxyaabaha inaad iska eegto akhriyo ayaa muhiim qodobka afraad waxa weeye inaad dharka iska bedesho oo ku noqon dad badan waxaad arkaysaa saaku soo shaqo tagaya wuxuu xiran yahay shaarkii iyo xiran yahay maanta ku shaqaymanaya wuu ku shaqaynaya wuu soconaya lugaynaya wuu ku dhididaya caawu sida ahaanaya berri buu hadan xiranaya saatan buu xiranaya saakuntu xiranaya dad badan saas wad aragtay way jiraan nolosheena meel badan oo qaran maxaa imanaya dhididkii baa gelay jirkaaga markaad maydho jirkaaga nadiif yahay laakiin maradeed xidhnay dhididkii already ku yaala kii shalay baa ku yaala kii maanta ku darsamaya kii berri baa ku darsamaya isku dul dhismaya taas maxay keenaysaa in uro inaad siifaday soo timaado ayaalos waliba hadii jeer urtaana dadkuna aad buu uriyaan sidoo kale dumarkuna aad buu soo uriyaan urta oo dad gaadhi dadkii wada raacdaan haddaad sababta qoftii waxtii weyn joogi wax laga yaabo inuu kullu yahay
adiga wax laga yaabaa yara lugaysay yara kulaatay yara diirtay laga yaabaa waxaas oo dhan maxay imanaya waxay keenaysaa in aad gabigaaga buuqdo buuq miidho ma noqonaysa markaa muhiim ah inaad iska ilaaliso dharka iska maydho haddii macalaa ilaahay ka dhigay dad halkaa shaar leedahay ma halkaa garaan leedahay halkaa garan marka maanta xirto caawa marka seexana soo maydho dad biyo gashato laydha ku wadho soo nadiif birito la xidho oo cidday nadaafadu kharashna kaaga baahna meel kalena kaaga baahna wax dee marmarsiyo samaystay ma jiro aduun bay kugu xidhantay qof odhan karaana ma jiro anigu inaan si fiican u uro ma karayo ma jirto qofkaas isagaa isku haya qofka soo bini aadan uu diidaa ragi doonba laakiin waxaa la isdheeriyay hagaajinta ishagaajinta la isdheeriyay markastaba taa markasta niyada ku hay qodobka shanaad in kusoo gabagabeynaya waxa weeye inaad markasta ku sidato jeebadaada cadar yar cadarada waxay noqon karaan cadarada yar mariska yaryare san loo marsado noqon kartaa qayrro waxay noqon kartaa baaleero lagu shubtaa jiro isku buufiyo cadarka ku qaadanaysa jira so many waxyaabo badan way buuxan ay noqon kartaa marka cadarada yar haddaad qaadato waxay noqonaysaa maadaama cadarkii weynaa guriga kaga timid ma sidan karaysid dee shandada cadar ku sidataana ma jiraan marka maxaa muhiima maadaama cadarkii dharkaaga oo reer ka horeeyo markaad ama yar weysaysto ama waqti yar kasoo wareego ama aad baxaysa dad dhex geliso bas baad raacaysaa taxi baad raacaysaa dad baad la fadhiisanaysaa la balansan tahay oo kaloo shaqadii kadib baad ciid u tegaysaa maxaa muhiima cadarkaaga yara jeebka kala soo bax dhagdhag marso nice sigsidooda saxanjada la soo bax dhac ku tuur simple waaba intaaba muhiimaddu markaa waxaa weeye adigaa isku haya inaad si fiican u urto sidoo kale inaad banaf noqotana adigaa isku haya markaa guys videoga intaasaan kusoo koobi doonaa insha Allah tacaala waxaan rajeynayaa qodobadaas inaad fiican sidoo kale waxaa muhiim ah inaan markasta nafteena ilaalino hagaajinteena iyo toosinteena jir ahaan maskax ahaan dhinac kastaba waxaa muhiim ah inaan dhisno taasaa muhiim ah channelkana muhiimadiisu weyn waxa weeye inaan nafeena horumarno waliba gaar ahaan rag ahaan tiin video xigoo doono anigu maxamed shaahid leh haddii aad markii kugu horeysay channelkan aragto ama wajigaygan aragto welcome magacaygu maxamed shaahid subscribe saar sidoo kale videoga la gare siina share gare asxaabtaada u share gare intaanu video xigoo doono waxaan leeyahay wada kaga tagayaa sidaa iyo assalaamu calaykum